Dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay qarax goordhaweed ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan Tareedisho. Qaraxan ayaa la sheegayaa inuu ahaa nooca soo boodada iyadoona lala bartilmaameedsaday askar socdaal ku mareysay Tareedisho oo dhacda duleedka magaalada Muqdisho. Ugu yaraan hal askari ayay xoguhu sheegayaan in qaraxan uu ku geeriyooday tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo xilligan dhaawacyadooda loo soo qaaday gudaha magaalada Muqdisho. Inkastoo hay'adaha amnigu aysan war ka soo saarin qaraxan ayaana dhinaca kale la sheegayaa in muddooyinkii ugu dambeysay hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan duleedka magaalada Muqdisho deegaano dhowr ah oo Garisbaale iyo sidoo kale ceelasha biyaha qayb ka tahay ay ciidamada dowladdu ka wadeen dhaqdhaqaaq culus oo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Shabaab ayaana dhankooda kordhinaya weerarada kala duwan ee duleedka magaalada Muqdisho ay ka geysanayeen kaas oo ay ku bartilmaameedsanayaan askarta ka tirsan ciidanka dowladda. Caynul Caafiya Hospital waxa uu ka daweynayaa xanuunka baabasiirka. Ma dareemaysaa dhabar xanuun, caajis joogto ah, cuncun dhanka hoose ah, saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha. Haddaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn. Wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3777.